But when you're winning in Illinois, you're happy to play by these rules. Again, I've condemned all gerrymandering across the country. And in fact, when Democrats had a majority in Congress, they voted to ban gerrymandering in every state, red states and blue states. waa kuma musharaxa aadka u da'yar ee lagu magacaabo James Talarico ee ka soo jeedo gobolka Texas xildhibaan heer gobol hadeer ah balse u tartamayo Senate-ka Mareykanka ama in uu noqdo senator ka soo jeedo gobolkaasi ninkan lagu magacaabo James Talarico ayaa wuxuu soo shaac bixiyay tartanka uu u tartamayo ama hanka uu u qabo in uu noqdo senator heer federaal asaga oo soo bandhigay ajendo macnaha ishagay madaxa ee gacanta wada saarteen qolooyinkii cunsuriyiinta ahaa taasi waxa ka daran in macnaha ishagay lagu tilmaamayba ama loo soo bandhigay xitaa in uu madaxweyne u tartamo oo iska dhaafo in uu senator u tartamo dadka qaarna waxay ku tilmaameen in uu yahay qofkii Obama bedeli lahaa ama Obamihii labaad in uu yahay markii la fiiriyay dabeecadihiisa kartidiisa sida uu macnaha ishagay isku soo bandhigayo sida uu ajendayaashiisa very clear ay u yihiin macnaha ishagay ay u cadcad yihiin waliba waxyaabaha uu ka sheekeynayo iyo ajendayaashiisa oo waliba gobolkan Texas oo lagu yaqaan inuu yahay red state in uu u bedelo campaignkiisa uu buddig uga dhigay let's flip the tables ama ishagay miisaska aan dabagedino macnaha taasi oo ka dhigan qolooyinkan Republicaanka ah aan meesha ka baabi'ino iyadoo oo sida aan ognahay qolooyinkan ishagay loo yaqaan Latinos iyo waliba dadkan loo yaqaan people of color oo black ah in ay gobolka Texas aad ugu badan yihiin balse in muddo ah dhowrkii iyo 20kii sano ama 30meeyadii sano ee la soo dhaafay lagu sheekeenahay in ay Republican ahaadaan la tashkiilinahay qolooyinka Republicaanka ee tashkiilinay balse hadda soo wada jeedsaday oo hadda aan u baahneenba xildhibaan ama qof cunsuri ah oo gobolkaasi laga soo doorto sidoo kale waxa loo yaabaa in lagu magacaabo Ted Cruz maadaama ay caqabad weyn ku noqonayso senator maadaama uu yahay isagana in senator kale oo isla gobolkiisa oo macnaha ishagay asaga ka karti badan uu wajahayo ama ay isfahmi waayay doonaan ama isku khilaafi doonaan maadaama asaga uu yahay dimuqraadi James Talarico ayaa markii ugu horeysay dhulka la galay asaga oo wax aysan filaynin iyo su'aalo aysan islahayn way idin weydii doonaa u soo bandhigay qolooyinkan cunsuriyiinta ah ee televisionka lagu magacaabo Fox News oo ay Soomaali wada taqaano oo wax kasta oo macnaha nacayb ah oo Soomaali ka soo horjeedo iyo nacaybka Soomaalida Ilhaan Cumar in la suurad xumay hadii ay noqoto ayada oo macnaha ishagay Ilhaan Cumar laga soo marahayo Soomaalidii ama qaabka macnaha ishagay xataa sawirada ay soo qaadanayaan ama reaction markay ka soo bixinayaan soo post gareynaya Ilhaan Cumar sawir macnaha ay soo fool xumeeyeen qaab darro u soo ekeysiyeen iyo waxyaabo noocaas ah Soomaalida dhowr jeer weerar ku soo qaaday qolooyinkan ee Republicaanka ah la safan TV ama television ama wargeys dhaxdhaxaad ah aan ahayn oo si toos ah ula safan qolooyinkan cunsuriyiinta ah ayuu James Talarico dhulka ku daray ama uu baabi'iyay qaab siyaasadeysan asaga oo su'aalo badan ka weydiiyay sababta macnaha ishee ku kaliftay qolooyinkan Republicaanka ayadoo oo doorashada laga hadlayay iyo sida ay macquul ugu noqonayso asaga in uu soo tartamay oo Texas uu matali doono waliba uu ku matali doono Senate-ka iyo Congress-ka Mareykanka sida macnaha ay suuragal ugu noqotay waxa uu filan kala wuxuu weydiinayaa hal su'aashaas oo ku kaliftay TV-ga dhan in la damiyo oo ninkii wareysanayna uu cararo oo dhaho macnaha wareysiga intaas ayaan ku soo koobayaa oo taasi oo xambaarayn iyo embarrassment ku noqotay televisionka weyn ee loo yaqaan Fox News ee 15 milyan wax ka badan subscribers ka haysto oo qof walba oo maanta America joogo ama qof walba oo Soomaali ah xitaa dabcan oo dhalinyaro ah uu yaqaano ama uu fahmi karo waxa ay ka shaqeeyaan marka televisionkan su'aasha uu soo bandhigay maxay tahay sababta qolooyinka Republicaanka ah oo waayadanba gobolka Texas oo aan ognahay inuu Republican yahay rabo in ay degmooyinkiisa kala qaybiyaan ayaga oo rabo degmooyin Republican ah inay ka soo saaraan si xubno Republican ah ay ugu soo tartamaan ama degmooyin hor leh ay ugu soo daraan ayaga oo sameeynahay wax loo yaqaan election gerrymandering ama in ay gobolka kala googooyaan ayaga oo districtiyo ama degmooyin aan horey u jirin hadeer aas-aasahayo
ama macnaha ay sheegay kusoo biirinayo gobolka Texas iyo waliba gobol kasta oo Republican ah ayagoo sidoo kale isku dayay inay faragelin xoogan ku sameeyaan meel kasta oo qolooyinkan dimuqraadiga ah ay ku badan yihiin si ay bartaasi kuraas ama galaangal uga raadsadaan ama haddii xitaa ay galaangal ka heli waayaan ayaga u undermine gareeyaan oo voterski ama dadkii codayn lahaa aysan u iman ama aysan u soo xaadirin guryaha ugu jiraan goboladan blue states ka Minnesota markii laga bilaabay waliba gobolada qolooyinkan dimuqraadiga ah ay ku badan yihiin ama loo yaqaano blue states ka in ay qaabkaasi u weeraraan oo programkan loo yaqaano waliba Operation Metro Search in ay u isticmaalayaan in howlaha doorashada ay ku farageliyaan marka su'aashu soo bandhigayo ayaa waxay tahay oo ninkan waliba Fox News in ay TV-ga damiyaan ama ay goobta iskaga tagaan oo macnaha ay sheegay soo gabagabeeyaan interviewgii ay isla hayeen asaga dhulka kula jira oo ayaga dhulka kula jira James Talerico ayaa waxay tahay macnaha maxay tahay sababta Donald Trump iyo waliba teamkiisa Republicanka ah ay u doonayaan in election gerrymandering ay sameeyaan oo gobollo iyo waliba degmooyin aan jirin gobolkayga oo asaga gobolkiisa uu tartamayo ee Texas ay rabaan in ay u kala qaybiyaan maxay tahay sababta iyo waxyaabaha ay ka faa'iidayaan sidoo kale maxay tahay sababta ay markasta ugu olayaan uguna codeeyaan oo ay uga soo horjeedaan boundarieski ama xadudihii gobolada ee dastuurka Mareykanka ku qorda su'aashaas ayuu ka jawaabi waayay asaga oo macnaha ay ku kalifayso danta maadaama sida aan ognahay sidoo kale uu ka hadal badiyay uu ka karti badiyay sida aan idin tusi doona muuqaalka cadeynta ay idin fasixi doono in macnaha ay sida ay tahay wax ugu sheegay runtana aysan rabin qolooyinkan Donald Trump inay ogaadaan waxay sababaysaa inay dastuurka ku tuntaan iyo sharcigii Mareykanka u yaalay iyo waliba gobolada iyo degmooyinka Mareykanka in gerrymandering lagu sameeyo dastuurka in la baalmaro ay ka dhigan tahay bal waa kan su'aalaha iyo qaabka uu uga jawaabayo. But when you're winning in Illinois, you're happy to play by these rules. Again, I've condemned all gerrymandering across the country. And in fact, when Democrats had a majority in Congress, they voted to ban gerrymandering in every state, red states and blue states. Do you know how many Republican members of Congress joined them in that effort? Which one? I'm sorry. Which state did you just refer to? I'm asking, do you know how many Republicans joined Democrats in the U.S. Congress? afkiiba juuqda gabay waxaa la weydiinayaa macnaha ma taqaanaa ama ma qiyaasi kartaa inta qof ee Republican ah ama xildhibaano xubno ka tirsan Congress-ka oo Republican ah oo u codeysay in macnaha ay sheegay aan la faragelinin gobolada iyo waliba degmooyinka Mareykanka iyada oo aan macnaha ay sheegay lagu soo kordhin karin degmooyin kale ee hor lah inta uu codeysay ma sheegi kartaa wuxuu sidoo kale sheegayaa qolooyinkan dimuqraadiyiinta ee asaga uu macnaha tigidhkooda haysto ama uu ka mid yahay in ay dhowr jeer u codeeyeen in aan lagu xadgudbi karin xuduudihii gobolada iyo waliba degmooyinka gobolada gudahooda ku jiro oo sidooda loo daayo balse qolooyinka Republicanka ah ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi ayna rabaan in ay degmooyin ku kororsadaan ayaga oo rabo inay sidaasi aqalka Congress-ka ay ku sii hogaamiyaan iyo waliba dawladda Donald Trump ayaga oo ka cararayo cabsi weynna ka qabo in Donald Trump impeachment lagu sameeyo oo xilka laga xayuubiyo. To ban gerrymandering. All the Democrats voted for it. 0 Republicans voted for it. 0. It's an odd. So you can spare me the both sides rhetoric. It's clearly one side that is trying to rig the rules in the middle of the game. This is like 2 football teams coming out of the lock. sheegaya hal dhinac ayaa isku dayahayo in macnaha ayaga u shaqeyso waxa ayaga ay rabaan si ay u sii hogaamiyaan Mareykanka iyo waliba Congress-ka halkaasi teamna waa iska wada naqaanaa oo qolooyinka Republicanka marka ma dhici karto ayuu leeyahay macnaha annagana waan rabnaa sida ayaga ay rabaan si la mid ah ayada oo sida aan ogeynba ayada oo xitaa khudbadii Donald Trump ee dheereed ee State of the Union ay socotay ee qolooyinkan dimuqraadiga degmooyin kale oo hor leh ay ku guuleysteen doorashooyinkii loo yaqaanay special electionada ama la qabanayay markii waxyaabo emergency ah ay dhacaan ama qof uu meesha ka baxo iscasilo ama qof uu geeriyoodo ka tirsan Congress-ka iyo waliba Senate-ka Mareykanka. Room at halftime and the team that's ahead
says they want to change the rules for the second half so they can win the game. All of us would be throwing food at the TV if that happened. We don't accept cheating in our politics. We don't accept cheating in our relationships. We shouldn't accept cheating in our elections. You've done the same thing as us, and we are going to, by the way, if you do it, we're going to ratchet it up even more, in the words of Gavin Newsom. My party has never gerrymandered in the middle of the decade at the request of the President of the United States, nor would we. The only way this is going to happen in blue states is if Texas executes this power grab. You mentioned Massachusetts. Do you know the party of the governor that signed that map into law? He was a Republican. It was a Republican governor that signed that map into law. sidoo kale waxyaabo propaganda ah uu faafinayay ayaa laga saxaya oo gobolka Massachusetts in mapkiisa la bedelay ama khariirada oo gobollo hor leh lagu soo kordhiyay wuxuu macnaha sheegaya in ay bedeleen qolooyinkan dimuqraadiga iyadoo cabsi xoogan ee qolooyinkan Republicanka ka qabaan inay lose gareeyaan controlka ama macnaha hoggaanka Congress-ka Mareykanka taasi oo fududeynayso in Donald Trump uu xilka sii baneeyo isaga oo xitaa la impeach gareeyay sababtoo ah uu ku qasban yahay haddana wax uga dhow ma jiro in Donald Trump asaga oo uusan xilkiisii dhamaanin in uu ku waayo madaxtinimada Mareykanka iyadoo uu waliba dambiyo fara badan iyo waxyaabo badan oo u kaydsan ay yaalaan wadamo uu iska weeraray dhiilal uu galay iyadoo oo baarlamaanka ama Congress-ka Mareykanka ay soo marin waxyaabo fara badan oo dambiyo ah lagu haysto sidoo kale haddii aqlabiyada qolooyinka Republicanka ah laga qaado oo dimuqraadiga ay la wareegaan aqalka Congress-ka waxa fududaanayso in faylashii Epstein si full ah ama dhameystiran xataa qaybihii Donald Trump uu uga jiray la soo bandhigo taas oo xitaa ku kalifayso Donald Trump in uu isaga is casilo inta aan la casilin. I want to be clear with our facts, and I don't want to muddy the waters. All of us, whether we're Democrats, independents, or Republicans, we should stand up to politicians who don't want to face accountability at the ballot box. That's exactly what's happening here. And I asked you, if Republican policies are popular, why do they need to redraw these maps? Why can't they just run on their policies? I'm getting wrapped on time. I'm enjoying this conversation. I want to let it go on, and I apologize. That's such is the nature of cable television. sida arkaysan bas su'aasha uu ka cararahayo oo telefishinka uu u daminayo interviewgii uu soo gabagabeeyay waxa weeye su'aasha ah macnaha maxay tahay sababta ay qolooyinkan Republicanka hadday isku kalsoon yihiin ee u rabaan in ay degmooyin hor leh ku soo daraan gobolada Republicanka ah gobolada dimuqraadiga ay uga hortaagan yihiin inay arintaas sameeyaan sida arkaysan waa uu ka cararay interviewgii oo wuxuu dhahayaa waqtiga ayaa iga dhamaaday asaga ayaana markii hore soo doontay oo wareysigan ku casuumay James Talarico oo ah xubin ka soo jeedo baarlamaanka heer gobol ee gobolka Texas hadeerna u tartamay in uu noqdo senator ka tirsan aqalka senatorada iyo waliba Congress-ka Mareykanka heer federaal haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fikirkaada nala wadaag waana mahadsantiin